maalmihii ugu dambeeyay shacabka ku dhaqan deegaanada Puntland ayaa waxay ka cabanayeen sicir barar baahsan oo ku yimaaday lacagta shilinka Soomaaliga habeenimada xalay ee madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu ka hadlay sicir bararka Puntland isagoo lacagta la isku diro ee telefoonka uu ku jaangooyay in $10 hadda wixii ka dambeeya la isku diri doono wixii inta ka yarna la isticmaali doono lacagta kaashka haddaba shacabka ku dhaqan magaalada Garowe caasimadda Puntland ayaa siyaabo kala duwan aragtidooda uga dhiibtay hadalkan ka soo baxay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani waddan iyadoo aan lagu fariisin kaashki in la dhaho lama isticmaalayo waa waali waxaan rabnaa tan kale in madaxweynuhu uu ku khasbo ganacsatada Puntland inay kaashka qaataan saaka BL baan soo raacay haddaan BL soo raacay kaashki waa la iga diiday 1.3 baan u diray 1.1 buu soo celiyay ilaa ma ku dhaariyo waxaas maxaq ba meeradaha cunto kaga ma cuni karin ha fariisa kaga ma cuni karin ilaa ma ku dhaasho waxaas maxaq ba saaha loogu noqdo hal isku laabto cuqaasha Puntland ha tashato aaway dadkii wax garadkii Puntland aaway ganacsatadii aaway dadkii culimada ahaa aaway dadkii cashuurtii waxaan rabnaa in dadka cashuurta laga qaado kaash waxaan rabnaa in dawladda hoose ay Soomaali ku qaado war anagu ma American baynu nahay Soomaaligu ha noolaado horta bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la Xuseen Maxamed Ibrahim Casaan waxaan ka hadlayaa lacagta la diiday madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani eedeeda male waxa iskale eedeeda wasiirka maaliyadda iskale iyo gudidii madaxweynuhu qaybiyay markii uu lacagta ciidamadii yiri bilibeed baa wax loogu shubayaa ee wasaaradii yiri bilibeed baa loogu shubayaa yaa la siimka wuxuu madaxweynuhu 10% baa la qaadanaya dawladdu qaarsa 10% ay qaadato dawladdu xaggay geynaysa haddii aanay mushaharka ku bixin oo wasaaradii mushahar ku siin oo ciidamadii mushahar ku siin hadeerna waxa la lacagtaas la socon mayso dhaqaaqina mayso khad kastoo la sameeyo ilaa lacagta laga daayo ciidamada loo geeyo kaash lagu siiyo oo wasaaradaha kaash lagu siiyo oo mushaharka kaash lagu bixiyo ma soconayso ummaduna way baqtiyaysaa madaxweynaha waxa uu leeyahay kada lacagtan aad ku bixinayso mushaharka ee dollarka kada oo ku bixi lacagta kaash ciidamada mushahar ku sii oo wasaaradaha mushahar ku sii oo lacagtu mushahar ku baxdo kaash ka noqdo dollarka anagu ma lihin American baale shaqo kuma lihaano wax weeye haddii ay tahay mushahar ku bixin ciidamada mushahar ku siin oo wasaaradaha mushahar ku siin wallahi xabad baa dhacayso dadku waa islaynaya aakhirkan waxay baabaqaysaa Puntland waa baaysa hadeerba waxaad xidhaa bilibeerka xidh anagu golis nama xukunto samtel nama xukunto lacagta kaashka ama xukunta ciidamadu waa inay kaash ku qaataan oo wasaaraduhu kaash ku qaataan iminka madaxweynuhu 10% baan bixinayaa yiri 10% xaguu geynaya hadhow Dani yaa u sarifaya isaga xaguu geynaya yuu siinaya markuu yiri cid mushahar baan ku bixin yuu siinaya mushaharka yuu siinaya 10% ku qaadanaya xaguu geynaya ma islaamuhu hadhow qaybinaya isagu yuu siinaya 10% ku qaybinayo madaxweynuhu waa inuu lacagta kaash ku bixiyaa oo lacagta ciidamada kaash lagu siiyaa oo wasaaradaha kaash lagu siiyaa oo lacagtu kaash mushahar ku baxaa مالي أنا أقول عقد مريكا مالين أو مدة كلا أبوالين تدل كونها وإنا يدولون فسحنا شعب كيجا والله هذا كراي السلام عليكم magaalada halaga guuro weeye hal islaayo weeye hal isqasho weeye hal dhindinto dadka qaar halaasa weeye ma yeelayno anagu hadaan nahay shicib namana anfacdo waxa weeye madaxweynaha waxa leenahay si degdeg dib uga noqo cashuurta waa inaad ku qaadid 50% waa inaad ku qaadid ciidamana mushaar u siisid wadankana dib ay ugu soo noqoto saa wax loo kala socodsiyo dalkuna saas uu ku hagaagaya dhanka sarifka marka la yiraahdo waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iideysto shacabka Puntland min ganacsato ilaa iyo danyar waxyaabaha naqarribaya waa inaanu fahansanahay mar walba dadaal baa dawladdu isku daydaa khubaradu isku daydaa in sarifka iyo dhaqaalaha la fariisiyaal isku daydaa laakiin waxa moodaa inay wax qasayaan shakhsiyaad kooban oo dana gaar ah wada madaxweynaha dawladda Puntland sheegay dadka waxaan ku jiraa qaba fikirka ah lacagta in ay ka socon laadahay ama Puntland horumarkeedu ka socon laayihiin dad kooban oo fara ku tirisa cadawgeena iyo cidda na baxnaaninaysa ee na brintaaraysa waa inaynu kala garanayno dawladdu ayadaa lacagti gacanta ku haysa ayadaa awooddeeda gacanta ku haysa waxay uga baahan tahay male inay $1 iyo $10 iyo joojiso waa inaan fahmi karnaa waxaan leeyahay shilinku ha socdo shilinku markuu shaqeeyaa sharafteenu na shaqeynaysa anaguna aan baahida ka baxaynaa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساقيس عبد الصومالي بالي هذا وضياش الجروان كم هاي واحد إلى شرط مظاهرات بالرعاية واحد لقى هذا معارض جرو وكسو غلغلية واحد لقى هذا سرفكا جرو وحباك التاجن صومالي جوال جيلي حالي مدعوينها واحد كسو يري طبعا دولار يوحي كبدن دكتور يوحي بقول كي سجاش ما دولار رجو قاضية طبعا الصومالي ما رجو قاضية واحد قبته ومدة معها لما أرجع لما بقلبها كده عضي برك عياش جنب قال واد بودع مري بس جات شو الباب سيء مساكينتي مرك ساي وعلى جنب جلاف يعني لما كان جن عصتها مدحوينها يعني ما جن عصتها للتشوجة أرجع على جنب جلو سياسة يو بس كنا وابا باي العكس صومالي أنا وا ليش مرسى أوكتين دولار كي ومغسل مدحوينها علي نومعهم طبعا ومضوا مغاضن بس كذا لقيت أيو إلى هنا على جنبه ومدنا هلا تيجليو أكون ما لستويستي شركته كمبنيو دولار بالسكو عيسانية دكتي شعب كان وبابا وصلوا ما يجو برك عياش أسبال مري تبعيني وذو مغرسين خبلا مساجد دولة وعلى قصة خاطي إلهي لقبقه وذاك علوقه يبرك عياش قاعد تشذو الله يسي أو ربعوا دولار ما يكونش غيان كرة الصومالية وحقيقة تيوان قاعد يلوض التفان كوان تيوان الله ساكذا ومغلي إلهي لقبقه ومدى اللون عريس سياسة معارض سيرينيو أنا كان نبيكتو ومدى هلا دقو هلا وقادو وبالله التوفيق